ذهان هباسك كاترا هنانك يانكو صدق ميني بانو هيلنا تاريخ ذهان هباسك كاترا هنانك يانكو صدق ميني بانو هيلنا الله تعالى وبركاته. نرجو كلنا نبي أنفسنا عليه الصلاة والسلام. كلنتي ونأكسن أكاديمية هرمان تعلم جاهلة إن هذه أخذ كعياء وما تحكم هو الموضوع قاعدين الموضوع برنامج الملك وحنا كسر دروس وأنا تعرفون. انت في البرنامج كان ما محمد كل مساعدين وحاسين انه كان قطع طوله هنا وحكوا بلاوينا القرآن الكريم كان أيضا القرآن الكريم كان ونأخذ معنا ولكن أو فرقة كلنتي ونأكسن مرة بعض أكاديمية هرمان تعلم جاهلة هي نادي أخذ كعياء ومحمد ورحمانته الحكم كسر مرتقى نادي أخذ كا أنفع كتير سماك كرهان دقمة رجالة أو قصة دومية عيدروس محمود عثمان دوميها هذه أنفع أهنا شخصي ودي لنا نعمله كون كعالمي على قطعي بندقة بوقت عالمي هجيسة كانوا كقطعي وحنا كتر سنة مسؤولين تواحد صاري إني برنامج كإنترناشنال بوك فير أي قيم الحالة قبلنا أي محمد لها كعاوية وحيالة بدر يعني هذا الشيء كسي دير مايو لو حد ستوصل محمد لها عن سكوت أما عن محمد لها بوتن وجوجل في لها وقبل كي أول يوم قبل كي سناك لبضع قبل عرفيها كلا تاجن لبضع قبل نحس كسر اليومين سببت كسر اليومين هويا ودن كذا حيسة سيدي سومال الآن أيوه من الهايين لو أنت كنا سيد عالم كانوا ولا كان قادر هن عالم كله مري سان ولا كان قادر هن سيد ولا كان قادر هن لو حيسة هاي وقت آية القرآن كان اقرأ وحخرية وحنقرأ مركا وحن كسر فو وحن ستوسع عن محمد لها ويقولون هاي إنه وحنا عقلنا وحنا قمنا ضد كنا كبولاني إن هذا الكي يعني هو كسر ديرارين إن حدا وحنا رفض إياه بدومية أكاديمية هرمان تعلم جاهلة عبد الكريم محمد حسي دوميه نادي آخر سكا عي الراب أحمد سكاي قرآن مثل مسرعة وحكرا قولها نوافق بالعسية سي شيء معي ويصور بحري عن قمامون وي يرك رجالينا نوافق بيه وهدوم محمد لها سي شخصيانا واقع مايو هدونا سي محمد لها قرح بدن برنامج موسم جديد وأنا أما هذا الله مناسب قوة كلنا كان يستحقها بالشدة لابد أعرف قاعدين بري إلا قلبين كلنا تعصب الكسر اليومي سيدي دنتنا يوم حنقول راح يستحقها بالشدة موسى مسؤول يحقل له واحد ستة وساعة نقول لها أنا لو حنقول راح حليلي ونقول دورة برنامج خصوصي صعدة برنامج مانجمنت ستة وسوحن وبلا بلهين برنامج كنا
aan xaggan iskugu imanay waxa weeyaan waxaan xaggan iskugu imanay inaan la isbarto yaanan iloobina naadiga akhriska anfac ceergaalo ka jira guddoomiyahoodu waa inala fadhiya nasiib wanaag xubno ka mid ah oo xubno ka mid oo naadiga akhriska anfac baa inala fadhiya oo jaamacadda Camuud ka qalinjibiyay sanadka 2014 walaalaheen xaggan inoo fadhiya iyaguna aad bay ugu mahadsan yihiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inay soo fadhiistaan dhalin hormood u noqon lahayd mustaqbalka Soomaaliland waana ku faraxsanahay qof walbana taas hamiliisa way ku jirtaa waxaan rajeynayaa inaan si toos ah u galo barnaamijkeeda mahad ilaahay baa iskala intaysa cibaadada maareyn mulkiga malabida wax la wadaaga maxamed baa maamuus min salawatullaahi wasalaamu calayhi waxaan ku soo dhaweyn lahaa si maamuus iyo sharafba ku dheehan tahay gudoomiyaha naadiga akhriska reeb iyo maxaan ku dhahaa isdhexgalka bulshada iyo wixii ay isku soo hidoobeen wax inooga taataabto ku soo dhawow Axmed Said waxaan kaloo salaamayaa baadiya waxaan salaamayaa gudoomiyaha akademiyada waxaan salaamayaa wiilka maanta boqorka ka camadashan ay guduus ahna gudoomiyaha anfac waxaan salaamayaa xubnaha meesha anfac waxaan salaamayaa tababaro nololeed waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka dalada Soomaaliland dhaxalreeb Amiin Xasan Aadan waxaan salaamayaa bahda walaalaha iyo ayreeb waxaan salaamayaa nafteeda intaa kadib aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo anigoo ku maamuusan aniga bahdayda ayreeb midowga iyo wax wada qabashada aniga iyo akaademiyada horumarinta cilmiga Camuud aan u garanay walaalkii ay durus inaanu bal ilaahna wad mahadsan tahay malajooda gobolkii wax qabadka dhexdeeda waxaan ku faraxsanahay madal sidan dad u qiimeeyay joogaan inaan ka hadlo aad baan ugu faraxsanahay inaan ay durus ilaahna oo jecel waan ku salaamayaa gobolka Amiin Salaam aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmayno annagoo aan akaademiyada walaalihi ah walaalo ka socda gaabo oo ay dhinaca kale Soomaaliland waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan noqdo gudoomiye kooxda ee madasha ka hadla waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inta dad qalbigiina ku haysan aan inta halka ku soo dhaafo horta midow iyo qof la yiraahdo wad maadsan tahay agteena qiimay kala baa idinka agteena qiimay kala baa wax fiican ku leeyahay waxaan xad gelinaysa si salaameynta walaalkeen ay durus iyo wax wada qabashada walaalaha ay reebiya akaademiyada walaalaha iyo akaademiyadoon u tirinaynayeen walaalahayga sidaan u ixtiraamo walaalkayga gubi anaan u ixtiraamayagana walaalahayga gubi waxaan mar walba accept ku leenahay ama waan ku aqbalsanahay ku leenahay horumar kasta iyo wax kasta wanaagsan oo nolol timaadaan oo nadinku adeecsanahay waxaan marnaba gafay idinkuna aan marnaba ka talaabsan doonin ixtiraamka dhexdeena ka dhaxeeya aad baan ugu faraxsanahay wax wada qabashada dhexdeena tahay si uu baan u tabiyay inaan madal noocan oo kale aan imaado intaa kadib aan mashruucta walaalaha iyo kulli su qalbi baan anu badan reeyay ayreena iminka waxay walaalaha u leeyihiin madan reeyay leeyihiin qalbiga u jirta wuxuu leeyahay Idris aan akaademiyada ka yimaada aan leeyahay aad baan ugu jecelahay ay gaabo wax naga gaarsiisaa ay gaabo wax naga gaarsiisaa wax la yiraahdo ay reeb oo qoraalka iyo gabayada iyo wixii la hadlaha qabataa waxay lahaayeen waxa ay samad ku leeyahay doonaan ma jecelahay halka inaan sii bariyo وانا كافي لي هذا امتحان كلها برنامج كا iyo امتحان كلها soorin hada waa intii laga fadhiyay wada maxsan tahay waxaan hadda si toos ah ugu gudbiyaa gudoomiyaha akaademiyada horumarinta cilmiga aqliga Cabdikariim Maxamuud Xirsi soo dhawaad والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا إلينا محمد
noo suurtageliyey isku imaatinka nolosha caawanaya. Marka xigta waxaa mahad leh dhammaan kasoo qaybgalayaasha nolosha oo ugu horeeya walaalkeena Cabdiruus oo ka socda naadiga Anfac ee magaalada Ceelgaabo ee gobolka Sanaag. Sidoo kale waxaa runtii farxada iyadoo isugu yimaadeen halkan dhalin ay mideysay fikir iyo afkaar ay xambaarsan yihiin. aan isugu yimid kale oo ka dhaxaysa bal isugu yimiday si ay u horumarin lahaayeen afkaartooda wanaagsan iyo si ay u garab istaagi lahaayeen cid kastoo wanaag oo intaa kadib madasha caawa waxaan u fadhinay waxa weeyaan soo dhaweynta iyo sagootinta walaalkeen Cabdiruus Maxamuud Ismaal Ibraahim oo ah gudoomiyaha naadiga Anfac ee magaalada Ceelgaabo. runtii socdaalkiisa ku yimid halkan waxay tilmaamaysaa fariimo dhowr ah xambaarsan tahay. fariimahaas oo ah inay mar walba xeelaan dadka isku afkaarta ee muddo qura wada leh. waxay xambaarsan tahay isdhexgalka bulshada ka dhaxayn karta labada gobol ee Sanaag iyo Awdal. soo kale waxaan leenahay mar walba Cabdiruus waan soo dhaweynaynaa waan ku garab taaganahay markasina agtaada ayaan taaganahay. tanna waxay bilow u tahay xiriir ay yeelan doonaan insha allahu tacaala saan rajeynayno Ceelgaabo iyo Boorama oo runtii ku kala yaala labada daraf ee gobolka Somaliland. waad ogtihiinoo sawirka jeegaan baa la moodaa haddii aad soo qabato kale jeegaantu waa deegaanta waxa Soomaalida tiraahdo. macnaha dad Ceelgaabo ka soo qaado Boorama keento sawir noocaasay ku siinaysaa. xaddiga intaa le ee fogaanta intaa le walaalkeen wuxuu u soo maray oo u yimiday waa jacayl iyo wanaag dhexdeena yaala. ma aha dan kale u yimida ma jirto, keliya fikir aynu wadaagno unbuu doonay inuu nala wadaago. tii baana ku tii sababtay aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan kusoo sugotaynaynaa. markasi aan haalaata ee agteeda ayaa agtaadaan taaganahay. soo kale waxaan filayaa intaad joogtayna inaad wax badan ka qabsato magaalada iyo gobolkuna. Ceelgaabona waa nagu salaami doontaa insha allahu tacaala. annagoo midaysan adkow iyo ayareed ayaan mar soo booqan doonaa Ceelgaabona. taas fariintaas badan ku noolyihiin dhalinyarta kale reer Ceelgaabo ah ee runtii jaamacadda dhiganaysa ka qalinjebisay iyaguna waa safiiradii joogay gobollada kale oo markaa muddo laga hadlaya safiiray soo saaraa. markaa walaalaha inuu soo dhaweynayaa mar walba waxaan leenahay waxaynu nahay dad midan oo midaysan. كده انت اسمع حاضر سوق بينها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نقول يا عبد الكريم أقبل مع سطح هذا الحال سنقول بدلنا المستوى وانا كابدون وحن توسع كل قلة جماهيرها أمام حقولها نادية هاي غبية أكاديمية ساعة مر ست عن سكولها هلا ما كان معهم وقف هذا بسبب المستوى qofka marka la soo dhaweynayo si aan u matalno qodobada oo qalbiyadeena iyo qoraalkeena si uu noolyahay sacabka iyo maxaan ku rahaa dhiirigelintuna ha u noolaato. intaasi waa in yaro iga dhex gala. waxaa si toos ah aan hadda ugu geli lahaa si toos ah hadda waxaan ugu geli lahaa walaalkeen ka mid ah kana tirsan akaademiyada horumarinta cilmiga aqliga. waxaana u raacsan garbaxaydii ma joogaan marayn oo labada garbood ma way jireen. wuxuu u dheereeyay oo weydiinayay tababarana waa ku soo dhaweyay maxamed Cumar oo la isugu yimaado aan filayo inay ku duulayeen. haddii layga horreysiin karo waan jeclaan lahaa, haddii kale aanay suulo garayn oo ama aan u qorshaysnayn iyaga hadal anaa keeni waxaan kaa codsan lahaa mar labaad inaad inoo dhamayso hadalka. markaad aad inoo dhamayso kadib hadlaheen kolleyba iyagu siday jawg iyo maxaan ku dhahaa markadadkuliba caadsaan aan ku soo dhaweyno si ay dadkeena noogu furmaano maxaan ku dhahaa haddi loo darayno ayaan u yar dambaysana iyaga sidaad u dambaysana la soco kusoo dhawaa intaa kadib horta waan cudur daaranayaa. waxaan isku wadayaa in
mas-uuliyadda aanay karaynay saaray intaas meesha wada fadhida oo runtii wada maamuusan qof walba meeqaam uu jecel yahay iyo martabad uu rabo uu taagan yahay in aniga layga dhex yaraa it seems to me laakiin haddana ayaana nafta ku gafin waxaan isleeyahay waa xaqii naftaada lahay markay walaaluhu isqiraan ay isku bogaan ay isjeclaadaan ee midba midka kale qiimihiisa iyo martabaduu taagan yahay si kal iyo laaba isagoo jecel qalbigiisa ugu degto markaasay maxabad iyo kalgacalka dhabtii bilaabataa intaa kadib waxaan runtii aad iyo aad u salaamayaa saaxiibkii Caydaruuska hor inta ilaahay fikirkoodii ka keenay inay madal noocan oo kala wajiyadooda isku tusaan dad runtii gobol ahaan iyo deegaan ahaan kala fog laakiin ruux iyo qalbi ahaan aan cidna isaga dumin oo tol iyo qaraabi iyo isra waxaan mar labaad mahadnaqayaa inta noocay doontee taageeraha ku bixisay inuu kulankeeda qaabsoomo mar saddexaad waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa anoo yar runtii xaglidaya ayaana Cabdiraxmaan oo Caydaruus saaxiibkeen Caydaruus ninka sida gaarka u mas'uuliyay aynu la wadaageen noocay doontaba caawimo ha noqotee keligii dabarka u dhintay si qof loo maamuuso sidii ugu sarreysay individual loo maamuusay mar saddexaad labadeena naadiga akhriska iyo qoraalka iyo halabuurada iyo kaydka iyo dhaqanka aayarreeb magacooda iyaga fasirayo anigana runtii aan ku faanayo runtii jecelahay inaan mar kasta maamuuso abaal ay igu leeyihiin anoonu arkayn laakiin waajib ay igu leeyihiin oo aan ka gaabiyo arkaya iyo akademiga horumarinta cilmiga iyo caqliga oo iyaguna runtii ishii keliya intaanay aan reeb jirin tv-ga keliya aan wadaawo jireen labadeenaas isla gartay inaynu si wada jira walaalkeena ugu nidhaahno waana ku jecelna waan kaa helnaa tegidaada iyo joogidaada micnay noo leedahay haddaad naga tegtana waa naga tirsan tuuna haddaad nala joogtana waa bartaniyo baraada iyaguna marka afraadii anigii adigiiyo idinkiiba dhammaantiin waan mahadsannahay maadaamanu isku afkaranay maamuusida walaal maamuusan qiimeynta walaal inagu qiimo leh dan intaa isku afkarano dee inaguna mahadsannahay hadal badan meeshaygama furnay runtii waxaan keliya damacsanaa inaan mahadnaq iyo kalgacal aan u qabo walaalkeen uu soo istaago sidoo kale idinka si guud kalgacal aan iga qabaan idin tuso laakiin iyaga kole haddaan istaagay waxaa igu khasaba kelmadu ninaraa kelmadaas waxa weeyaan noloshan aynu ku noolnahay nimba micne u leedahay nimba dhaqanba u leedahay nimba waayo gaaru ku nool yahay laakiin waxaynu ka simannahay aaminsanaantii ictiqaadka ah in nolosha macaankeega iyo dhadhankeega uu qofku dandamiyo marka walaal hooyadii iyo aabihii aanay la dalin uu la wadaago nolosha aynu ka simannahay taa marka ixtiraam iyo tixgelin iyo muxubo iyo xurmo iyo kalgacal qayraxada uu qofku u qaado walaal hooyadii ayna biologically u dalin markaasay nolosha dhadhankeega timaadaa waxa Caydaruus goorma keenay isagoo weligii goorma arag waa kalgacalkaa bini-aadantinimo kalgacalkaa walaalnimo guud oo muslimnimo kalgacalkaa Soomaali iyo Somalilandnimo kalgacalkaa bahdii iska wada xigtay bahaa kale ee akhriska iyo qoraalka kalgacalkaa bahdii halabuurka ahayda kalgacalkaa bahdii inta u dabran ee u dhiiran ee mar walba u tuumaynay horumar gaarsiiyaan daayartiirtooda kala inaguna tiim baynu maanta ku samaytayna Caydaruus shakhsiyan aan waxaan ku leeyahay qalaabu igu qoslayaan haddana inaga idhahay waan dhegaystaa heesaa naan barnaamij inaan dhegaysto waayo qayb nolosha ka mid ah Caydaruus ada waxaan ku odhanayaa hal eray oo heesaa ka soo qaatay caashaysa haddaan fadaya heesaa isaga fiican halkaad ku taalo qaawan tari ما أخذ عاشر؟ That's the individual one. Academic أنا قصة على واحد بلاي. عاود أنا قاعد دوس موجود هاي. نجمد ديري. أقولنا هاي. نجمد بعض هاي. نجمد بعض هاي. نجمد بعض عندهم تا. أولي يزيد بلنا. أنا نسيت أكلمه كم ده هاي. الرجل أنا قال لي روح كل أحد. بس هذا ما
أنا أعرف هذا راح أقول يا أحمد عيد الويس من كاي واي أو بلا سبحانه من كاي واي مرة تاجر وعلى الرأي مركي قف سود الدنيا سوف يسوي قرنا من البوليسية في المرفق على رئيس العلاقة حيسميها يبغى سوق الكل كمان سوق شيء زي كذا سكر يلا العيد السكولة يعني من كاي واي ده يقولوا بينا دول كاي واي يوم حقي بعد كان يسوق كاحي مرت ومرت قيب كاي سونا عن كل هاي أظن أنتم تجلس بإذن الله. هذا هو عسلوك كوكارا ودوني أن بقول توش أبو. عن كسوق الجري هذا كي جوان ديري مكانية لسنا كل يوم بإذن الله أنا فيه ديري تونو تلاقيت كنا هاي حلاي تغير أنواع أخرى. إن صوب أفغانستان ده يركن ده كلا فكرة كلا قيسة كلا قبيلة كلا معنى كلا علم يا أخوان كلا مسكحة أنتم دبوا كلا وردونيسية كلا رمتانا إن أنت ميلس بوي مادان السنجل common goal أيانو فردنا يرهلان وحيابا ريال كيف نيرك إلهي نقول محضر إن شاء الله عندك قلت يا إلهي إن شاء الله ممكن إلهي يسكو حاله ده إلهي درسي يسكو شعال الله ينوعه ومحسن هو ذلك محمد عمر عثمان آدم وعيس نحن نقول ومحسن يتوبرون النوبات سوى هذا الكلام ودقي ذلك سيدا محمد يعني سميدا وصل دوري هذا واحد 6 ساعة نقول فينها إن يروا كتيرنا عن حساسية يتوبرون النوبات وحصاها قاضي غير مركع غير سيلع غير ما أخذنا باللولو إسقى كملا مركع إسقى هذا الكي أورنا يام أنا واحد محمد إن كسر أول شيء كيسمى من هذا الله بدن كهاي لكن محمد إسقى أنا واحد يا عبد الله العام غير ما أخذ إن كسر هذا اللي بايريه بقرطوي ما أخذ بايسي إن يصير هيستان هذا عاود وكلا بحنا عبد الله العام 6 سنوات حنقول بدلها يلا تبين هذا الشمال تبيسي سلوك الدواتي أياك الدواتي محمد عمر عثمان محولي حبله عاوي وأنا جوابي نايو يضاصي محمد لها أو فعلنا كل شيء هذا الباصات ورتي لكن أنا بفعل كمان كنت سأل محمد عمر وأنا تكون بحثت هاي توقع من أولاد سيدا محمد عمر حسوسي ولا لهم يعني كسان حسوسين يعني عاشا إدمان وكسر عتاء أكاديمية هرمان تعيد ليا قريقة أنا حتى والله ما بدحيا يا حاجة أكاديمية دي حاجة نادي قاعد تسكع عليها وما بدحيا مركان محمد عمر من حاجة وكل شيء أنا من حاجة مركان وسيدا ملك راح يبا لكن واحد شعلانها أنا سوى دحف الزيتينو سي محمد راح إيه كمان أنا معي إن أسماء يو عاشا مش كيسان عد ولا لا سوى قابل قبلها دورنا أوضل قارحان waxaan ugu magac darnay caweyska youtube-kana magac bad u bixinaysiina magacaad u bixinaysiina Facebook ba ku soo qaracay aniguna imika baan soo bixinay waa caweyska gobolka Sanaag iyo gobolka Awdal caawiya caweyska gobolka Awdal iyo gobolka Sanaag كمان كده weydinkaas كده زي لو كلا في شخصين لا استعمال waayahay si toos ah u bilaabana barnaamijkeena inta markii hore waxaan dareensanaa inaan laba kooxood kala hayo laakiin imika waxaan dareemayaa inaan maxaan ku rahaa aanan cid kala hayn oo maxaan ku rahaa shakhsi labada qaybun u kala dhiibaya ama maxaan ku rahaa hadalka on hadda si toos ah hadda dareemaya waxaan si toos ah aan u gudbinaynaa barnaamijkeena waxaan u yar soo dhaxgeliyay inaan is dhaxgalo waxayna soo dhaxgalay sharaab iyo cuntada intii baan kaga faa'iideysto waxaan lahaa ciidanka buuqiyo inta yar ugu dhex faa'iideen alxamdulillah ilaahay inuu soo tageliyay hadda si toos ah waxaan u galayaa hablaheena intii aan tabayn gabadh ka socota akaadimiyada horumarinta cilmiga aqliga Caasha Axmed Xuseen
موسى ما سيد عفيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير كبيرة بدونيها نادي أنفع بدونيها أكاديمية هرمونية علم العقل بدونية كتير كبدونية هنا بدونية كتير كنادي عيرة بدونية سائل فوقادة بدونيها نادي عيرة دلنيرة قرحة البلد رجل دمر بلا اسكوتشر لبنا نادي أكاديمية هرمونية علم العقل هي نادي عيرة لما أنتي مرة واحدة نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد محن ملاين يا هذا البدن إيمان بنانا لكن هذه اللي حبله وقت أسفل هاين عن الله إنما دي أدوات مشارينا صواب حبله من أمسية وهالكي محمد اللي حبله هذا البوم محرب وهالكي هذا البوم محرب لكن مرة روحا أد أصول دولين يا ولكن عيدروس أو كنتي لبى مسيج موسى كي نادي أنفع يكي عرقابة أولا aad baan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Boorama walo aan hore kugu soo dhaweynaa filaya message-kii labaad inkaan naga gudbin doontaa adigana markii ceergaaban ka sugeynaa insha Allah aad baan kugu soo dhaweynaa hadaan nahay labada naadi ee isku duuban ayareen iyo akaademiyada horumarinta cilmiga caqliga runtii waxaan idhaahdaa ma garanayo farxad darteed waxaan soo dhaweyn ahayn sidoo kale ofsaarda iyo bay noo joogaa leeyahay hore looma sheegin Saleebaan كيس اللي يسند ولا سجنا أي على الكلمات هنلاقيها ده كمان وجي واحد ما هذا لا هذا أنا كان يجري بصوت البال ده هاي كذا وبرت ورايا بدو بتشوفه مرة هجو أبوانو بعاون نقدر نسوقاني نفس صدر تمام شغلانه ماشي نسوقان كم قناته أو ده تام بيشاري so كاسنا ملها هذا اللي بدي نادي يشوفان إيه رجوا يوسف عيدروس لوسمي ماشي أنا لقى عن فلان لكن ما يدعينا أفر لي أنا خصوصا سمين دونا عالي أنه يكسبونه وينو يفيسبوك أفكر إلى هذا بجيتو ونسولو وين يا مثلا كلا عرقابة إنه تبي يقولنا كل رأي عرقابة ما هنو ملين يا ومكسي ما هدي هكذا جامعات ودي أي حد يكترنا كويا رسالة شوغان وبور ميوز كتير عرقابة إذا كنا إذا كهاي مسج كي بور منو كده رسالة كعرقابة ولا ينتسوي إن شاء الله وما تسوي فرح سنة هاي كل كده عاود كتير كهالله ومركي يقول رئيسي أتكو ما تلاقي إمادين رئيسي عشان تقول كهالله محمد أمي ربنا شوقه ما كان هذا العلاج في شر سبب برضه ولا مركي زينا كهالله فحتى إيه هاي حبلا حاجة كمان waxaan jeclahay inaan hablo badan hadalada isoo leeyahay rasiyo aad xagga dambe noqon ha hadal badan ma iga soo bixiyay imkaankii way noqotay dhammaantiin aad baan ugu faraxsanahay kiina waana idin waa wada mahadnaqayaa cidii soo abaabushay waxa si gaar ah ugu mahadnaqayaa ayaaladii oo magacii gobolka kiina yani la ismaahay waajib badan oo ina saarnaa anagoo dhan ayuu ayaala naga diday aad baan ugu mahadnaqayaa qofkan walaalkii mahadnaqaynaa ilaahay uma mahadnaqo ilaahay kan saysiyan kuleeyahay عيدروسنا وحنا لها أنت يا ديورة عيالنا نقول نسولها عوام ملايين يا وح أيضا ضمنا الله راعي معي إن شاء الله قلنا هزمت اللي ما أنت وين حصلت هاي ولا عشان أحمد سيدي حضر القروح طبعا السورية ده مو سميسي ما آخره إن رفض بها العيلة كنا آخره نوان أيجنا يجنا هذا الكوب هدول هيدا ها إن هرتا سيد عيد ورمان هرتا سيوالنا هدول ما آخر يا كان نحكي على كعبين وهاي هي واحد ستة وصو قرية يلا تبي وحن تبي لي هبلهن ولي ويسي صعلا ما عشان قاهر معنا استاجنا ها ويستبص على لكن هسكا ورهيان ستة وصو وايهي أي راب ينادي أي راب أخذ كل قرارك أكاديمية هرمونات علمية عقلية ما نقارن بهستي حيد يلا معنا حريرة سامع كهال بالوايه وايه وحن ستة وصو حنو قلنا ولا شيء آمنة وكسرعة هذه آخر سكا آسيا ستة وصو ولا شيء آسيا فوات معنا السلام walaalkii waxaa marsiinayno ay duruus inooga yimid dambe safar badan noo soo galay aadtan kaaga celinayaa professorkeena inala fadhiya daadayarle dhammaan xubnaha reer gaabo oran maayo reer gaabaad tiintis mar hadda halkan si walaashay soo sheegtay afar sanadood joogteen ama ka badanaysid reer fuulun hatiina reer gaabo magaca dusha markaysatay marka labaad
يوم الصدحات والله يوم الصدحات يوم الأخرات قلت إلهي ما هذا اسمه كان إنه وقلعين السلوك لما ده وحنا قررنا والله كرم ما يعترسون من بدن ولا شيء صار شكتي ده بدن ما يقول رئيسور شيئين فقال كي أحمد بقى فريم تهدي يردو كسيك ودو قلوب تهدي واحد كله هنا عاونا مصافى بكرة كهاتنا رحنا هذا كيلو وحنا كبقى يعطينا بابور كيالي يضل كيك مسح بيبقى بكفيه لكن مرفوع هذه أتبقى كمان علمية هوش وينين القبطي يو محايا لاني أكتشو كاقا labada waan ku faraxsanahay waan ku soo dhaweynaa qalbi furan gacmo furan uji furan inta waxaan ku leenahay ku soo dhaweyn waxaan hadii aan mahana gobolka awdo ay gaabo deefis waxaan nahay mar haddaan maanta saas ku fadhino dheeritaanka iyo xoga distance-ka inoo dhexeeya micno ma sameynaya waan leeyahay aad iyo aad baan muhiim waxaan celinayaa kulanka wanaagsan ee maanta sharafta noogu tahay akaademiyada horumarinta iyo naadiga akhriska ee maxay leeyahay naadiga ayre sida ku sharfeen intii soo aabshay waxaan leeyahay university maalka ayaa loo si fiican barnaamijka u tadwiinaysa waxaan leeyahay maxay beelay kuma santahay badan aan ku sax magacayguna waa asiyaa mani maaha mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad waxaan idhaahdo ma garanaya horaan kugu sheegay cidiruusay waxaan idhaahda garan maayo farxadda awgeed mahadsanid afraad baan sii socdaa soma walaashay way maxadsan tahay Aasiya kulankan qiimaha iyo caweyskan caawiya caweyska haye sheegada caawiya caweyska waayo sayla waayo caawiya caweyska gobolka awdal iyo gobolka sanaag ayaa maxaan ku dhahaa caawa aad u damaashaadaya marka maad aragtay doontu ay haabanayso fadda iyo maxaan ku dhahaa cawda ay socoto sidee nafti iyo maxaan ku dhahaa jaw waxay haabanayaan lama qiyaas karo waliba markaan Istanbul xeebteeda yar aad ku joogay waayahay haddaan sii socdo hadalkayga waxaan si toos ah maxaan ku dhahaa aan ugu gudbinayaa in badan ma carabaabin laakiin haddaan si toos oo carabaabaya ciddaan u daba fadhiisanayna xagga gobolka awdal waxa si toos ah ay ugu suntan yihiin aqoon-yahano iyo maxaan ku dhahaa meeshii hoyga cilmiga waayahay gobolka sanaag waxaan leenahay hoyga cilmiga waxbaad ka barateen profesoradiina caawa weliba rag waaweyn maaha professor ama berigeen maqli jiray oday gar caddaaday iyo timo waaweyn baan arki jiray laakiin maanta waxa ay farxada inaan arko dallin maxaan ku dhahaa goobjoog u noqota iyagoo da'yar oo digriinta camuud ka dhameeyaan mastarka warka maxaan ku jaamacadaha caalamiga ka soo diyaariyaan waxay nala fadhiyaan Saleebaan Bashiir oo ah maxaan ku dhahaa lecturer Ayala University kan soo qalinjibiyey Kampala International University masterna ah waxa si toos ah ugu galayaan badanka Newton iyo qof walba taariikhdiisa ka sheegay masala أو مدير دينسي هذا تاريخ سليمان خير شكله. سجع مقبح كسره. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد السلام السلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن فرد الله عبد الصومالي والإنجليزي في عندي حاجة هذا فرد بدنا ولقى ولا الصومالي في عمار هذين مر فرد الحمد لله وتلاقي مع الله مسؤول وكذا كان مرك الله ده حنو محلنا بيا إن الدروس وتيارين بدنا ولا شيء سنة ميل فوق ولا يستكون كيلومترين كلهم ينوبي مدي الواحد ويا مدينة عيتهم وكل واحد يعني ما تقعنا بشر إياه لأن يرى المستقبل كان بيننا كنا نشوفه نقول كذا عتين ده من هذا إن دنيا أكاديمية ده يسوون الشغل بدنيا كتير في محمد يسوونه إن دنيا كلها أكاديمية ده سو إن بدن عوض بحياة هذا ما حيوم اللي على أكاديمية ما بحياة ويا إن بدن أرتا إن لما أنت رحت على اليوم ده أنا ما عندنا غير الحمد لله
qaar badan kulay wajeedeen waa isaqaana qaar badan wajeedeen waa isku cusub yihiin ayaan lana in professor weli ma yihiin laakiin inta badan bulshadeena qofka marka uu macallin jaamacadeed yahay waxaa la yidhaahdaa professor taa kasoo gudba waxoogaa Soomaaliga waa laga fiican yahay baari it means dugsigaygii dhexe aniga iyo dugsigaygii sare last year-kii dugsiga sare maahan ilaa dugsigaygii dhexe intiisa ugu badneed waxaan ahaa Carabi jaamacaddiina halkan ayaan ka baxay kadibna waxaan tegay Uganda waxaan ahaa ardaydii jaamacadda ayaan ka baxday Uganda tagtay 2012 baan tegay waxaan ahaa master of public administration waxaa la yidhahdaa postgraduate diploma project kabacdi waxaan kusoo noqday waddanka muddo hadda laga joogo 6 months meelahaas laga joogo 6 bilood waxaan bilaabay jaamacadda aan macallinka ahay intaas xoogaan yaro brief aniga background-kayga ha noqoto magacayguna waa Suleymaan Bashir Amar barasho wanaagsan intiina aan soo qol intiina kalena alxamdulillah waan soo naqaanaa dhammaantiin kolley in arday badan oo waxaa laga sheegay inamo badan oo burco inooga yimid Ceerigaab dhammaantiin intaan arkay iyo intii aan wejiga gartay intii aan garanaynba waan idin soo dhaweynayaa magaaladan waan idinku soo dhaweynayaa kolley waa layga horreeyay waa layga soo wada dhaweeyey aniguna waan ku darayaa protocolku siduu yahay inta haddii aan kasoo gudbo horta caawa imtixaan baan lahaayo ayaan ii cabdiruufay kasoo bixiyay qolaan imtixaanka qaadayay waxaan isiri qolada welwelsanay imtixaanka ku jirta ku dhibsanaysa miyaad kuwan faraxsan aad caawa u tagteeda soo qaybsatay imtixaankii mid kale aanu dhiibo laga reebay sidaasaan aniguna idinku yimid oo farxaddan uga soo qayb galay waanan idinka mahad celinayaa dhammaantii sida fiican aad uga soo wada qayb gashaan haddii aan in yar ka idhaahdo wax yar waxoogaa naadiyadaas hadda jira oo hadday akademiyadda noqoto hadday naadiyadaas kale noqoto ama halkan ha ka jiraan ama ay gobollada kaleba ha ka jiraan midkii ay doonaan runtii waa wax aanan anagu jaanis u helin xilligaan anagu iskoolada dhiganayo xaqiiqatan anigu markaan arko naadiyo wax qabanayo inta ugu badan lawaan tegaayo waan ka qayb galaa waxaana ugu weyni waxa weeyaan dunida aynu maanta aragno waxa qaabeeyey waxa halkaas maanta gaarsiiya haddaad u fiirsano mataqaanaa dhismayaashan maanta adduunyada horumarka ay gaadhay hadday dhismo noqoto hadday technology-ga noqoto maraakiibta iyo diyaaradaha iyo duniyadu maanta halka ay marayso haddii aan u fiirsano waxa gaarsiiyey oo halkaa keenay waa hamigii ama riyadii ay dhalinyaro innaga inala mid yihiin shalayto ay ku hamiyeen ayaa maanta ay dunida gaadhay oo ay hirgelisay fikradda maanta maraykanka iyo reer dunida ku gumaysanayaani waxa ay hamigii ama riyadii dhalinyaradoodii shalayto dunida joogtay ay ku hamiyeen ayaa maanta la hirgeliyay waana wax aad loogu farxo in dhalinyaro intaas ka kala timiday businesska intaa isku jira goboleskaasi ay waxa keliya u midoobeen ay tahay inay noqdaan in mustaqbalka dadkooga anfacaan gabay baa jira kolley gabayada waa laygaga fiican yahay ahaa yani jiilba jiil dunida waktiguna wuu socdaa qolabna qolaa bedelaysa dhalinta soo socdana waxaa lagu eegaa noloshoodii horumarkoodii mustaqbalkooda waxaa laga qiyaasaa kuwa maanta jooga halka heerkooda waxbarasho ama aqoontooda ama ay kartidoodu taagan tahay waxa ay qiyaas u tahay kuwa berita soo socda waxa aan inagu maanta uga tagno kuwa berita imani doona unba ay ku noolaan doona haddaba soo qaadano tusaale ahaan aabbaha maanta xamaalka ah ama shaqada adag ku jira ma jeclo inuu ilmihiisu ka dhaxlo xamaalkaas hadduu xataa lacag fiican ku qaadanaya haddaad guddiso tirado ilmahaaga mala jeceshahay xamaal ama qofna kaamiyado waxaana aad wax loogu farxaa in intaasoo dhalinyaro qof kastaa ku hamiyey inuu isaguna wax noqdo bulshadiisa iyo ummaddiisana wax ka bedelo isagoo aanan qofka u eegaynin mataqaanaa qabiiliska iyo regioniska iyo meelaha uu kasoo jeediyo waxa uu kasoo jeedo soomaali ahaan waxay noogu badan ilaahay qur-aankiisa waxa ku yidhi jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu sama soomaalida waxay noogu badan litaxaakumu waan isticmaalnaa inagu jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litaxaakumu waan isticmaalnaa ilaahayna waxa laynoogu soo dejiy inaynu isku garanno eemaynaan inaynu isku xukunno aynu isku qaybqayno intiina halkaa joogtaa maanta qof kastoo inaga mid waxaa laga yaabaa ee qaarkood aa regionka dhulkanayba ka yimaadeen waa wax aad loogu farxo runtii aad baan aniguna u jeclay inaan kala soo qayb galo inaan arkana aad baan u jeclahay weliba aan ka mid noqdo mar kasta dhalinyaro iskugu timiday inay wax ka bedelaan mustaqbalka cidda ka dambaysay iyo ayahooda ay ka fikiraan haddii aad adigu maanta qaabayso noloshaada oo aad ka fikirto mustaqbalka waxaad ku noolaanayso waxay noqonaysaa nolosha ubadka kugu xiga ama ubadkaada ugu dhali doontaana mid qaabaysan waayo adigu marka aad taada saxdo soomaalida waxay ratiisaba daryeela tu kale ku dara taada marka aad adigu maanta saxdo iyaa ta kalena ku dari karta anu alxamdulillah waxaa baan idiin arkaa dad toodii qaabeeyo tii bulshada ku daraya insha allah allaha idinka dhigataan oo idinku dacaynaya dhammaanteen idinka iyo aniga in ilaahay naga dhigo kuwa bulshadooda wax ka bedelo oo wax ku soo kordhiya oo jiilka maanta halka ay hiigsanayaan uu qof walbaaba gaarsiiyo qofka kale walaalkii iyo ku xiga hadalkan anigoon sii badinaya runtii aad baanan idinka mahadnaqaya
وأنا كفر أحسن عينا عندي كلا سواق قبل جاي دروس يا أصحاب تكلي ما كنت متماشى فمنا مسؤول وين يا مر لغادي يا مر صدق حال سبيك أنا واحد من مقالة مسؤول لغادي وإن شاء الله إحنا نجيني أو حاجة أضد مع ده الكل شغالين سنة بيرتاح كمية ونبتي هذه كلام يا حتى نقطة كوا ماشي فوق دلوقتي مع الدنيا قاوي إيريدي ولا جوي سنة إن شاء الله وين يجونا واحد عمر بشر واحد ولا ترى لو جالسيو مستقبل كنا بكسر بيحدون labadaas dhalinyarada maanta ka qayb kala timaada inaynu noqdaan kuwo qaabiyo bulshada ku kala nool labadaas deegaan iyo inta u dhaxaysaba mustaqbalkoodana wax ka badan dad dunida la tartamanaya inaanu noqon aynu noqon qof ku dayo dunidana waxa ugu liita tusaalahaan qof aad ka qaadan kartaa roob waxyaabo yar oo ka dayo laakiin ku dayin inaad qofkaas oo kala noqon ku day inaad qof ka sareeyo noqon qofkan aad ku dayto berito waad gaari halkaas hadafkaaga ku eegay dadaalkaaga toobado inaad helayso soo gaarto إن شاء الله وحنا نقول إن الدنيا تطلع تمام الدنيا يجا كده إن شاء الله من يوم رغم مرات كلية إنه لا نحن نقول النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنت أصلا هذا الكلام تسويه ولا نبي الله محمد قيادة ما أنت أنا نسقوني أنت أصلا إن شاء الله أنت أنا نسقوني نقارب نعاون نسبرني أنت كلا إن شاء الله هذا كله بيني وياك وبرني دونا مرة واحد يمسك حنا عليكم السلام يا سلام الإسلام السلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان جوالي وقت سلام شير عمر أهنا أنا في سلام والله بقول علينا ما دام أول شيء بدل كعب الحمد لله أدور أبلغ خير قفل روح وكسروا بالأولياء لا مكان تاسنا وفي المدة ترى مكان سبحان الله كما حرقوا في السنوات وهي waxaan si toos ah hadda aan u guudagalaynaa walaalkeen wehelkeena jaamacadda Camuud uga soo hayaamay inuu ka diyaariyo waxbarashadiisii jaamacadeed intaas leedihiin inuu soo socdo mise kilomitir gaabo soo socdo ama xatimaado soo socdo sheekh berbera hargeysa بورما ولبا يا بسم الله ولبا بورما ما بورما سو هضرع عمود ودقمدي بسم الله الرحمن انت هاس maxay noqonaysaa isku geeya waxay noqonaysaa ya taraag inta niga taraag badan ala ma sheegay wax weeyaan 860 kilomitir qofka intaas uga soo hayaamay uga soo jarmaaday Soomaaliyeena waa weyn hada ayaan hadda ku soo dhaweynaa inuu jaamacadda Camuud wax ka barto soo dhaweyn kale inaguma baahna 4 sano soo dhaweyn furuud balguude waxaan sameeynaa Maxamed Ibrahim Ahmed Kuutiye oo ku magac dheer runtii hawada yaqaan miyihiin faqaarayaasha waa la iga oo klaaska inta badan ka hortagay يرجع هذا قوية هذا قوية فرحة صايجة قوية إذا والبحر للسواي هم فرحات هاي أنا لبكر الوكيل على وكيل يمكن وأنا رسكت هاي ليه الرقابة يمكن هاي برمان نقول ده أنا كتاوي قرنا ما كي مقالة ده كان جبت الرلاب ترك بدل بياعي موت إلا يمكن صار مقطع تكنو وقرنا أنا هنو مقالة دي فوق بين قطعة من دوتو تبقى كفتمي ولا هذا مقالة دي لما تبور ما حشنا ياهو ليش ما كان الله حنا نقول كذا مقالة كواد ويا مركا واكاس حليل بدلنا وعلين هاي الرقابة يو عدلوا سرتين ولا سابنا لو قصوا عابد شرا أول صومه شرا ولا سابنا ولا سابنا خمر ضي runtii bulshooyin isku duuban bay nahay hal kala fogaadeen laakiin xiriir bay naga dhaxeeyay Allah musta'an anaga si fiican lagu soo dhaweeyay intaas oo sanad joognay baan ka mahad celinayna sida anfac reeni club loo soo dhaweeyay gudoomiyahooda matalo maadaama magaca magaalada ku socdaan insha Allah ta'ala akademiyadan iyo anaga reeni club soo bamnaa akademiyada insha Allah markaan tagno aan ku dayo insha Allah wafir doonaa diraahada adnaasin haduu baa idin kala bixiya iyaga hal xaqaas aweyska iyo maxaan ku lahaa iyo barnaamijka hanya kala saarno hadhow wadeer wada aweynaysiina xaga iga yar hala hadda waxa si toos ah ugu gudbinayna hadii la helaha waayahay xilgaaba ka sheekeynayna wax barasho looga soo hayaamee
bal waxaad qiyaastiin kilomitirada diyaaradda hadda weeyaan tii dhulka maaha looga soo raacay ama maxaanku idhahaa waxbarasho loogu tegay loogu hayaamay loogu jarmaaday suudaan waayahay waa wehelkayga maxaanku idhahaa magacayga waayahay intii buug feerkana ciddii sare wada seexay jirtaan taasna inta kalena gadaal baan naga sheegay se jaati kan nagu soo diray insha Allah ayaa laga soo dhawo doonta hadalku marwaa ku soo bood dadna ku barido de marka lagu sii sheegay xumada laakiin marka lagu soo tuuro de inaad u dhamaysan mooyaan daadada ku dhig say doonta noqotay aad ma san yahay aad looga raali gelinayaa taas oo habsaamay dhamaan كلمات كوبان باران أو مهرنا كوبان عن سكارة مهرنا قيا عدروس وانقع كسرة بدونياش النادية مرتشرف ده لما عن كسرة كراياش وكسران إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابو يعاو بور أنا مركها وحسيت ملاعب قابو حاجة حوم بدن بق ولا هم تشوفت ولي جينا بتي وقرنا مقاحي قربي runtii ergaada waxa weeyaan waxaan jeclaa caawi sanaag laga dhigo yaro weynaato bahasho oo caawan mid saaxiib oo goob la yiraahdaan muqdisho la hadayo wana buugi aqoon daro nacay ii soo raadiya ku muqdisho meeshii laga helo migaas oo garnay waa qisacaan oo de sanaag ka dhacdayo aad u qurux badan oo de dhalinyaradu ku wanaagsan oo xaqiiqa runtii sanaag de waa meel runtii ergaab waliba khaasatan degmadaasi meel deegaan ahaan aad u qurux badan dad ahaan aad u qurux badan dabci ahaan aad u qurux badan oo runtii dad aad u dabci wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan runtii waxaan macay dirus leeyahay de boorama nalaarag iyo baraaraha yaala roob iyo daaya waxaan kaloo mahad dhamaan walaalaha wallahi waa maadsantiisa ruuxda badan ee kusoo qaban qaabiseen وقت الناس كذا ضيع عليه وحويان ده حضونا إن جن هرم هيدان بعدين أبغى بقى نحاول نبرمه وكاي جنا وقت كانوا وهم في ويا أدب ما تنتين وبنا توقف لو مثل يا رب ما نشوف السودان إلا بور والله كلام ما ما نقدر نقول قصام راي مثل صوت يعني تعصب حن عبد الله هذا عم حاجة فينا لما بقصي قرار إنك بيلاد قصي على قلبه ويدي الواي هي واحد ستة وصحة عن ممكن بيننا عم مش كاسب حلو كل سنة مرة أيام الله قال يا بريك ورقدنا هوسه يا سوى كل شيء داون واي واحد حتى ستة وصحة عن ممكن بيننا برنامج كان عم حضرها وصوته فرناي ولكن أي دروس محمود عثمان نسيب العيش ولا إعلانها إن صعب يفعل في سوق ما إلا كعناه صعبنا ولكن هي رتها كعناه halkan isugu timin asxaabta kulankan isugu yimi aad baan wada salaamayaa waxaan si gooniyo salaamayaa naadiga ayeleeb iyo akaademiyadda adkow gobolkan awdal labada naadi aad baan u salaamayaa si gooniya waxaan kolka xigta salaamayaa qurbajoog iyo qolqoljoogba ayaanle iyo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan halkan nala fadhiya oo reer Thailand iyo reer Suudaan saleebaan dooraysanka shaqal way tafaynay saleebaan iyo asxaabta kale waan salaamayaa waxaan si gooniya oo qabyaaladaysan u salaamayaa saaxiibadayda reer Sanaag ee halkan ila fadhiya oo aanan kala baxaynayn
inaan salaamo bacda salaantaas islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib dee maanta dhan waxaan maqli joogay qolyo salaadiin ama siyaasiyiin ahoo ammaanu la isla dul taagay maanta oo dhan mahadnaq iyo ammaan baan maqlayay maxamed wuxuu yidhaahdaa malaha maan mutaysan laakiin naftayaan xaqiiqan waxaan mutaystay anigu waxaan leeyahay maan mutaysan intaasoo dhan waxaan ka mid ahay dhalinyar isku mid ah baynu ahayn inaynu isu mahad celino waa wax weyn weeyaan oo qiimo leh ilaahay agtiisa iyo diinta islaamkaba ka qiimo leh ka sugnaatay marti hadday isu timaadana soomaalida lagu yaqaano in dee mataqaanaa laysasogeeyo laysasagootiyo anigu intii martidu joogi jirta waan ka badnaa halkii lagu yaqaanayna maan joogin 3 cishay martidu joogi jirtay anigu 3 maan joogin waa ka baxay martinimadii oo hadda nimanka reer 4 sanadii la joogay iyo dee anigu waa isku mid baanu 3 ayaam soo maahay 3 ayaam kumaan joogin maalmaan joogin ka badan intaa kadib mahadnaqaas aanu mahadnaqaya asxaabteenna waxaan mahad kale u xujinayaa saaxiib naga maqan oo xaqiiqdii ah waxa keliya ee sukaan keenay iyo cidda keliya ee maskaxda ka dambaysa inaan isu nimaadno waxa weeye jaamac muse jaamac oo xaqiiqatan ah Percy Cultural Foundation agaasimaheeda ninka hawshan bay isku soo dubariday ee naadiyada gobollada dalka oo dhan isaga keenay ninkaasaan halkan uga mahadnaqaya isagoo qaayba intaa kadib waxaan halkan joognaa de safar baan ku joognaa sadcaal baan ku joognaa martidaan ku waa ka tegaya anigu haddii lahaa wadaleedu berri subax baan ka baxaya waxaan uga baxayaa cashiro aan ka qaatay gobolkan awdal guud ahaan islamarkaana aan ka soo qaatay xadkii Ethiopia oo gobolkan sanaag miyaynu ka dhamaana maxamed guuleedii miyaynu sanaag ka dhamaana maanta xadkii baan ka baxay xalayba oo Ethiopian kale halkan yar baan soo socono Ethiopian kale inta casharadii aan ka soo faa'iiday ayaan la noqonayaa waxaan kala noqonayaa inaan bar hadda reer awdal dee iyaga laftigoodana wixii aan gobollada kale ku aqaanay aan u sheego ee guulaha ay leeyihiin waxaan saaxiibayaal idinla wadaagayaa gobolka sanaag idin barbar dhigi maayo oo xaqiiqatan haddaan isbarbar dhigo anigaa malaa wax khalday idin barbar dhigi maayo xaasha waxaan idin barbar dhigayaa caasimadda hadda Puntland tahalgeysana idin barbar dhigi maayo Somaliland taana idinla dhigi maayo ta Puntland baan idin dhigay guul wanaagsan bay gaadheen reer awdal caasimadda dhan ee Puntland aan sheegayo ee gobollada dhan maamusha dee intiina tagtay baan ogahay waxyaabaha wanaagsan ee badan ee aanan qiyaas karin ee kaga wanaagsan tahay gobolkan awdal waxaa ka mid ah xulashadii horta iyo jaamacadda halka ay 7 cisho la isfooladeynayay waxaan odhanayaa bal biyaha keliya bal aan eegno biyaha maamulkaas halkaasaan tegay maalmo dhaweyto waxaan arkay magaalo biyaha lagu weysaysanay kiliga biyaha 3 nin baan nahayno 1500 laan lacag u dhigantay baan ku iibsanay weysadii qof walba message-ka kayuu galayaana wuxuu bixiyaa 500 laan lacag u dhigantay wuxuu bixiyaa halkana fursada biyaha ah ee malaa dhowr boqol qof ku weysaysan karto waxa la yiri 1700 وستيت كوني شاب بس ما كان فين وحويا كوني يتطلب قلاش من كانوا قايلين كوني يتطلب قلاش حلقة 3 قف باكوي يستا ويانا كاغو يمريبا كل يستا حلقة جول باكل لي البرنامج كي سوى دلك إن نعرف هذا مدة كله حاجة سكيوت الأمنية أمن والإيمان بالليل بالأمنية نقول هي حاجة أمنية waxaan arkay magaaladan oo habeenkii aanu gaariga kaga seexano dabadda oo aanu baabkeeyo iska hadaan doono sii celina aanu ka baxno labada 3 habeenimo iyo aan markaan doono iska baxaynaayo aanu ka tagaynay waxaan waayay ciyaar xaafad waxaan waayay kuwa buursata waxaan waayay xabagle
waxaan waayay tiindhafle intaasoo dhan mooyima magaalada maxaa ka maqan intaasoo dhan gooni ma laha intaa bedelkeeda magaalooyin badan ma kusoo arko magaaladaas ay ka mid taana halkaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin iimaankana dee mid walba waxa weeyaan wuxuu doona isagoo ah haddana waa wada sheekh iyo wada shabab iimaankana jooga intaas oo dhan waxa uga yidhi waa talaysku jecelaya halkane taasina waa taas xagga shaqadaa timi xagga shaqada horta waa laynagaga fiican yahay gobolkeennan awdal dhalinyar badan baan arkayaayo shahaadooyin badan qaadata sanad walba oo haddana shaqadooda fursadoodu ay aada u koobantay xaggaa aan tegey quality-ga aqoonta iyadoo low ah haddana inanka ugu yahay aqal baan ku degay sidan oo kale aan saaxiiba ugu lahaa aqal baan ku degay aqalkaan ku degay waxaa joogay ilaa 6 inan baa joogay 6daa inan ka ugu iyo malihii hadda hala yaaco xaggaa loo shaqo doonto oo iskama helo shahaado laguma helo xaggaa shaqadeeda shahaado kalaa shahaadatu qabiil location baa lagu helaa xaggaas inanka ugu yar $600 buu qaadanayay laakiinse ilaahay idankiisa bal markaad weysadii aada lacag ku iibsato oo koobkii biyaha ee aada cabaysay koobkii shabaabka aad suuqa ka cabaysay 40 kun oo shilin lacag la yidhaha waa $2 aada biibitadii macmaalihii aad ka cabto dee wax kuu soo harayaaba ma jiro marka halkaasna shaqadii iyadoo ay fursadii naga badan tahay dee xagga kale ay ka go-anta oo meeshaas waa alla usaha dhanka kale wax kaloo aan markaa dee idinku sii wadwado ma jirto waxaan dhaqamada halkan kala yaabee cajiibka ah waxaa ka mid ah siyaad bakaa wuxuu u tegay qaladaasu iibiyo markaasay aabow siyaad baa la odhan jiray iyagu wax kale ka horreysiiye aabow siyaad ka yidhaahdo adana macnaheedu waa adhi kelmadda adhi bay iyagu boway ka horreysiiye marka wuxuu yihi warba adhigan iyo bowwada kala saaro ya halkan waxaan kala kulmay kelmadda huuna la yidhaahdo oo cajiiba inaan reer muqdisho ahoo isna ayaanle sidan oo kale u yimi ayaa maan ma dhaweyto wuxuu yidhi waxaa nala joogay asxaab kalaan u malaynayaayo wuxuu yidhi wani huunada ma raggana miyaa lagu yidhahdaa buu yidhi oo nimanka inta adkay nin weyn oo nin huuna ku leh oo huunada nimankana miyaa lagu yidhahdaa kawda anna waxaa ku idhi waxaan ku idhi dee wixii aan ku idhi baan ku idhi halkaa waa ka daynayaaba halkaa waxbaa ka dhalan dooneen kadibna dhaqama hoosaad baynu leenahay kala duwan kaasaa ka mid a waxyaabaha marka fursaddaas waxaan u sheegayaa aan caasimadaa dhan ee maamulada dhan dee maamusha ee budgetka badan hesha aan uga idinla dhinac dhigaya waxa weeye dalkeenu inuu alxamdulilah rabbilcaalamiin ay nahay oo maanta habeen iyo maalin aan biyaha 3 jeergii baan ku maydhmaydha halka 4 jeergii baan maydhmaydha biyaha saasa iyo nimcada sidaasa iyo jaamacadaha noocana dee inaynu xajisano oo dhalinyaro ahaan niman master bay sitaano markaasay ku leeyihiin meesha waxba ma jiraano waa kuwa gobollada kale laakiin gobolka waxa uu kaga duwan yahay intaa iyaga waan idin odhanaya wuxuu kaga duwan yahay oo aan idin leeyahay yani dalka aynu xujisanayn wuxuu kaga duwan yahay waxa aynaan lahayn saaxiibaday maxamed waa qurbajoog isagoo odlada guuleedii baan nala isla ogeyn maynaan lahayn gobolkeeni sanaag ama east africaba ma laha barnaamij la yidhahdo nolota aadama ama waxaan arkay hay-ado yidhaahda moral support iyo saasala oo dadka dhiirgelinta iyo hay-ado dhan u samaysan baan halka ku aaday oo qof walba waa dhiiran yahay oo aada buu adag yahay oo niyadiisu way kacsan inaan saaxiibnaaba markaa gaabo kala hadlay wuxuu yidhi wadboqoladii sida reer galbeedka ahayd baad la joogta reer galbeedku waa dhaqanya oo motivated ah bay leeyihin iyo kacsan marka maasha allah niyad ahaanna dad niyad wanaagsan baatiino weydi kaaba dee dadka dhisidooda iyo hadalka af soomaali barashada iyo dee ayaala oo midho soo saara ya anigu waxaa maxamed buu
كجلجلي بقى أنت محمد وقاطع أنت محمد فيديو يلا بدن هي وحيابها بدن وقاطع يا عشان كنت بدن وقاطع يا الله ما أدري وحنا كنا ملوك يعني على أي حال قبل كسنة إحنا هذا اللي شاف قبل كسنة إحنا ليه وحنا أوضح هاي السنة وقت هو قبل كسنة اللي نقول 38% أيو فيه وضع وقبل بدله أو بطله أو بنان له أو له داقسين بنان اسمه هي داقسين له وقبل معدنته الوشة قبل ما بكأبته وقبل هذا نراها أقوم معدنته بدنوية تي واجه سوماليا لبارة تي مانتا لبارة ما كوا نراها أقوم أجلسن معدنته سنعد كلا سوق ميسي نمع فرددا ما هي نمعين ودقاتنا لدونية وأين الله صبحنا وحي سويسا نينك كلا أو ضل سيلع شوية إلا هي نينك كلا دحات شوية بيسويسا هو وحين وضلين هوية ما أنا قمنا هنا دكتة يدي وضد يدي طار وحنا هنا قبل كل جيمي وكارد اللانك هوية تذك ذاك يجا ما يجا مقالة إلهي هداي فهو ما المدوي نجلس كله هو نجلس وده تهون دمانت بس واحد تاسع أنا ما يمسنه إحنا نقبل تمادين لو نقول يحلكش وإذن كان اللو بعهي إن إذا كيف ونسكو أكيد الحلقة تمادا وحنا جا دمشق قبل كأول الأسعار بالسكية قلنا يلا بحافظات بدقي حافظة صوتين كتير قالوا أنا ضيقي إني في صار كمية حافظ ليش نيجي لا نيجي صار أو قبل كيني في صار نقطة وقبل إنه وده دقيقة يصدني يسديد بكي سمع لما حلقة حد كان كجاب حني ثمان دقيقة سيسون شنو يتوضأ يقوم لا وحن قاري أنه سمع لما كجاب حني كأولت أفضل تساعد هذا سعوته كان جاب قاري فأفضل تساعد كلا إس أفضل تساعد وست نوت أفضل تساعد ما هو بعض هذا أنا جاي إنك مالك كصوب حياة ما تبان حد كصوب من صوته كصوب حي هذا يسوي أنا قل جاب كصوب حي قال كتقدر ما صوب سام بان كصوب الصوم يعني بلاك إلى هاي نسي الحمد لله رب العالمين marka waxaan idin leenahay gobolkii iyo dalkaasi aan saas u nuucaysay waxaan idin soo wadaa kulleeyda safarka iyo muhiimadiisa anigu waxaan u yiri safarka haduu shiddo dadka kulleeyahay oo nabiga kaleey salaam yiri de safarku shiddo inuu leeyahay uu sheegay hadiisidii halka hadda isku galgeli maayay haduu sheegay safarka aniga wuxuu ii yahay waxaan quuto wax dan ah waxaan ku naax oo ku xaqana dhismo ayuu ii maskaxdayda ku qalaarto oo waxaan la kulmaa dad cusub iyo dhulkoodii iyo dhalintoodii anshaxoodii iyo dhaqankoodii iyo waayahoodii iyo qaabkay u nool yihiin ilaa kala dhaqan baynu nahay runtii wax badan bay ku kala duwannahay anaa og oo gobolkaas anaagna jooga kanna intii ogaaday hadda ka horna dee cilmi iyo cilmi dhagood badan ka haystay wax badan bay ku kala duwannahay waxyaabahaasaan ka faa'iidnaa ragga socodka waa u daba haddii moodku daayo nimaan dhulma dhaayala inaan baa shalay wuxuu igu lahaa gebil iyo ceelgaabo teebaa weyn ya waa waxaa jiidaya ma aqaan dee asxaabtu dadka igu badnaayo marka qof baa weydiinay haddu halka fadhiyo siima sheegay waa ku fadhiyaaba hadda xasuustay marka waxaan yeelaynaa waxaanu sheegaynaa waxaan anagu idinku casuumaynaa sanaag ahaan inaad gobolkiina ugu timaadaan dhammaantiin midhiyo 2 iyo 30 aanu qaadi karno nin baanu idiin sii kaxaynaynaa dhowaan insha allah aan soo casuumnay oo bal meesha idinka soo eega bal idinka soo tijaabiya meeshaas intay joogto iyo intay bal hawl leedahay iyo nimcada taalla qof walba Somaliland ama Soomaali ah wala ninkii muqdisho u dambeeyeen aan wada joognay iyo saaxiibadiis waxa ka hayna qaabay iyo inay labadaas uga sutayeen dhulka waa dhul aynu wax badan wadaagno maxamed baalaha waa siyaasi maxamed naadiyaduna ka dhaxadlinay maalintii dhawaad xilsi waa ninkii gilgilayay weeyaane jaamacadda ka hadlayay halkan habeenkii soo xasuumay wuxuu lahaa awdal wax nooga iman jiray barsaab badan
togdheer noogama iman inta nooga timi gobolka soo gobolkan awdal soo sheegada waan ismahayo oo ku khalkhalday adiga gobolkan awdal bada saabkii labaad baanu ayaan dhaweyto naga yimi oo nalaga bixi wax badan bay naga dhexeeyey dee waa meeshiiba ay ka timaadeen intaas gaaliha layga ahaado siciid jaamac xuseen baa wuxuu yidhi buuggiisa safar aan jahalahayn baan iyada xalka kaga hayaa wuxuu yidhi usafarka dad cusub la kulanka dad cusub reebashada dhulkooda dhaqankooda habnololeedkooda dareenkooda iyo dadnimadooda anshax iyo adduunyadooda waxay kugu dhaweeyaan garashada adduunka aynu ku nool lahay ee sirtiisa iyo salkiisa aan weli la gaadhin degaankaagii dalkaagii iyo dawladdaadii aad waawayaha ka mid ah u haysatay inay adduunka ugu sitaan ayaad ka kortaa oo aqoon iyo waayagnimo ka korsataa shalay maad ogeyn oo waxaas lahayd anaa dee reer hoowe no one like anaa ugu sita dadka anaa ugu fiican laakiin maalintaad ka baxdid maasha allah meel kaa hooseysa aad tagtid meel kaa awood badan aad tagtid ayaad ogaanaysaa waxaas hawli tahay naadiyadeennu waxaynu isugu nimi iyo akaademiyadda iyo dee akaademiyaduba naadiyadunbay haydeen akaademiyadda intay soo jirto unbay isu ay haydee gudubtay oo tiri academic baanu u gudubnay waxaynu isugu nimi waxa weeyaan akhris iyo buug meel la dhigo wixii shalay laga yimi iyo waxa maanta tagtada iyo timaantada iyo joogtada in wax laga idhaqdo dhalintana ilaahay baa dhulkan inoo dhiibayo dee oday waa kii lahaa haddii reerku yegleel dego ayaa degelka ayaa aqalka u soo oodi ayaad digsaadka iyo gudinta usoo daabi angoolka iyo digsaadka ayaa gudinta usoo daabi almadar duug makartay mala aanunba iska daalo gabay noocaasa uu lahaa xaaji aadan baan leenahay waa aynu ka kacno meesha dhulkaasna baaba-a ka jawaab ee biyaha lagu waysada la iibsanayo waad aragtaa waxaynu is leenahay caasimad bay yihiin waxba maaha baa is leenahay innagaa markaa dadka ugu wanaagsan annaga biyaha xagga biyaha oo kale waa nagaga yaro fiicantiino gobolka sanaag waa gobolka ugu biyaha badan haddana xooga ee idinkooda naga biyaya waanu ka qaadsan in badan marka waxyaabahaas oo dhan fursadaha dahabigaah oo dhan baa haysataan dhulka ha lagu nasto ha lagu nagaado maalin walba waxaana dhibaya sanaag jaamacaddii camuud oo intaasoo dhan iyaga ka baxdo oy haddana badda ay ku leedaan oo la odhanayo intaasoo dhalino reer camuuda camuud ka baxday ama sanaag reer sanaag ahaayoo camuud ka baxay baa badda gelaya waxaa wacyigelinta iyo niyadda la dhisayo iyo waxaan dadkan la bedelayo ha lagu daro waxaas oo inaan annaga ka gidaarka jiifa ha dhinto laakiin kan masterka qaatay ama digriga qaatay baddaas inooga ilaaliya iyo marba nimankan qabqabsanaya ee marba kaliya la baxay taasi wayga raalliha layga ahaado magaca halka layga sheegayaayo waa iska allay leedahay waxaan kusoo gabagabaynayaa bal in yar inaan idinka taabto decelgaabo awdal waxaan ka odhan lahaa ka eg wax badanoo dambena waan ka odhanayaa xaaji aadan axmed xasan waa kii lahaa taariikhdu waynoo misbaax maanka caawise adoo mala gudayaad mariiqiin ku gaadhaaye makaankaaga waa inaad taqaan meel kasta waxyayaal meesha dee ha ku ekaanon halkan meel kasta waxyayaal waa inaad taqaana dalkan waxa ugu mudan ceelgaabo uguna muuqdheer waa maakha kooskii la degay mar aan la koobayni jamhuuriyaddu mataalkeed iyo ma laha jamhuuriyaddu male meel shaabahdiyo mataalkeeda oo kale waa ku 996 uu gabaygaa tabanay xaaji madxafkii dadkii hore dhigiyo madaxiibaa yaalle maanlahiyo taallooyinkaad aqalla moodaysid meelihii kasiga lagu qashay maanga doota waa kii lahaa manaakh iyo hawaba waxay ka tahay mawliskaa ciraaqi kolkaad madaxa sawdeed tagtiyo meesha ugu taagan badda waxa marayoo dhan baa maraayad ku ahay sayid maxamed meeshuu dhisaan maabku doorsoomin madfaca laga ridaa wuxuu socdaa maylal
madfaca laga ridaa wuxuu socdaa kuman masaafoode gabay noocaasa oo runtii aan jeclahayba inaad dee eegtaan haddaad doonaysaan dal iyo dad inaad raratid inaad eegtaan waxuu halkan iyada ku leeyahay wuu ku sheegay odayaashii kasoo jeedeen dhulkaas in meeshaynu kasoo jeednay sheekh samaroon baan tegey halkaa dhalinyarada aan hisa u dhigayba maalin waxay idhahdeen intaan mukushitig iyo kasoo sheekeeyey naygalkii aan kasoo bilaabay dadkii madowgii iyo kawkaashiintii iyo naygalkii iyo dadka aan kasoo bilaabay baan kushitig markaan soo gaadho eesagaan kushitig iyo waxa aan soo gaadhay dhalinyar bay ahaayeen qabiil u badano markaasay idhahdeen dee keeka bella kusoo tag dadka waxaan leeyahay ceeb maaha waxaan tegey sheekh samaroon baan tegey nooliskiisii oo meeshuu ku aasnaa sheekh isxaaq baan tegey sheekh daarood baan tegey waxaan tegey shuyuukhdii ugu waaweyneyd oo dhan ciise ceelay wadda ku yaalaayo saaxiibada tegey baa garanaya marka waddadaas rumaaya maydh loo sii socdo gaariga waa la joojiya arraweela waa islaan turkiyada taa dhagax baa lula dhaca dhagax baa la dhaca halkay ciise ceelay markuu halkiisa la gaadho waa la joojiyaa gaariga waa loo duceeya faatixada lama ciisaynu joognaa oday indhala maalintii u horreysaan tegey oday indhala ciise marka la gaadho soo joojinaysa ha waa la joojinaya waa la joojiyo halkaasoo la duceeya ciise waa ka inaga sii shisheeya xagga inaga sii jira soo ma ha waa jabuuti iyo gobolkan yaan lasii fogeynay sayla waa nimankaas wey waa loo joojiyay marka saasaa la isugu wada xiranya dadku saasay uga wada yimaadeen arrinkaas waan ku fogaado waxay la tagtay gobolkan awdal iyo buurihiisa iyo inaan waxaasuu ka sheekeeyo gobolladii nugaal caasimadda puntlandna waa anigaa ka sheekeynayay waxaan usoo noqonayaa naadiyada waxaynu isugu nimin waxa weeyaan dantaas hadda ka hor baan imin markii koowaad aan imaado waxay ahayd bishii 3aad 9 waa dabaaldeg uu lahaa akaademiyadan horumarinta adkow waxaanu nimi barnaamij kale maanaan waan soo dusnay 7 barkaan halka soo galnay 6 subaxnimona marka xafladii aan habeennimadii dhammayn aan seexanay 6 subaxnimona wax kale maanaan iman haddii ma lacag baa lagugu siinayay masibinaag bay ahayd ma yaa waa kan may jiro sababtaasaan halkaa oga soo huleella idinkuna inaad nooga soo huleeli doontaan ayaan rajaynaynaa safar un weeyaan ama ha gaabnaado ama ha dheeraade waa safar waan idin soo galle idinkuna inay sidaas oo kale usoo geli doontaan taasaan isugu nimid maalmihii dhaweyto ayareeb baan aad dee nagu soo cusboonayd oo naadiyadayda aan aad madaxa ugu sidnay ayareeb waanu soo dhaweynaynaa 100% waa naadiyada ee gobolkan awdal ee kolley inoo bedelay dee naadi weynaayo gobolkan ka jiray inoo bedelay halka inay buuxiyaan gudoomiyaha baa inala fadhiya dawlad xareeb oo malaha hadalka isagu ka gaabsaday oo halkan inoogu soo xidhi doono malaha hadduu doono xareeb waa amiin xasan aadan hablahan halka soo fadhiya ee ayareeb u badan iyagana waa salaamaya ismaana aqoon inan keliya un baan iska naqaanay qolada kale ee saaxiibada qadiimiga aan isla ahayne adkow iyana waa salaam mid lamid aan ku barxinayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa hadal badan ahaan marka bulshee aynu sidaa isaga sii dhawaano inantaasi siday tirina dadka hadalkiisa lama sii raaco badanaayo haddii aynu caawa dee fikirkii wada joogno oo fikir ahaan ka midaysana dhisan iska inoo dhexeeya macno badan samayn maayo oo inaynu waxba isuna jirno waynu isu dhownahay taasuun baan kusoo dhaweynayaa nimanka gaalo halka nala joogaa ayaan markii hore anfac buuna raaciyey waa dadka waa wada anfac waxaan wax anfacayna ma jiraan laakiin adiga si toosa ugama diiwaan gashana si dadbanna ugama diiwaan gashana waa nimanka reer ceelgaabo jaamacadda camuud noo yimi haddaan reer ceelgaabo caawa u soo casumi lahayn meel qaada maynaan helayn inaad ogaataan oo lays ogaado way tahay maxamed hadda caashays ag fadhiyeeno hadduu lahaa 4 sanaan joognayo dee social waxaan ku yidhi cod badan baa helaysaan waa tii loo codaynayo lalahaa waxa weeyaan reer goodan weeyaan cod badanna way helayaan dee codkaa wax kale maaha oo golaydi ka soo doonan maayaan dee codkooda waad fahmaysaa maxamed baa codeeyey
magaca hablaha ha ku siininayno mada shaqada weydinka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay walaalkeen wehelkeena nooga soo hayaamay 860 kilomitir jeclaysi inuu maxaan ku lahaa oo dadkii maxaan ku lahaa gobolka iyo dadkii Soomaalida iyo dadkii Soomaaliland matalay hogaamiyaashii mustaqbalka dhow hamniga isku yimaadeen way noo cadahay hadalkiisa iyo maxaan ku lahaa iyo khudbadu soo jeediyay waa mid aad maxaan ku lahaa sacabnol loo taabtay aad baan maxaan ku lahaa aad u mahadsantahay Aidarus وانا كان بدوني informationkii xamboorna ka maxaan fiuga ka haysatay horta waxaan ku faaxsanahay inuu maxaan ku raacay sidii looga sheekay hadalka dhageysu ku dhici jiray intuu noorma arag iyo maxaan ku raacay markuu arkay isku siga noqday waan ilaahay mahadi shayga marka waxa la yiri barsoorta lahaynaa soo taas ma bisiin hayno barsoorta uu sii jaxaaday marka in kana sidii uu maxaan ku lahaa uu maxaan ku lahaa inoo sheegay waxaan ku dir lahaa in badan buu inoo dul maray maxaan ku lahaa sanaak iyo gaalada iyo maakhirba iyo awiyaashi Allah naxariistay xagga ka soo jeedaan inta waan ka doonay maxaan ku lahaa awiyaashi shaqsa iyo cidda ka tafiirnay waxaan aniga codsan lahaa إلى أن نحن حاول نت إنتانو عامسنا أو ياشر كالغريب من عدي سوامالي لا يكتب في المتن أما شرق الساعة أما سمران أما شرق عيسى أما داراب أقول حين أفك سوامالي كل اللي يكتب في المتن أو ياشر أريد سوامال لوريش يا أريد سوامال لوريش أريد سوامال إنك تحس ما ينجري هذا حرب تشهد دقيقة هذا يرخم أنت أسمع وأبحث لها إنك لا تفير يا الله أعرف الجلوس مصاص عنه وأنا ما أخذ وراي إن شاء الله أبحث لها وأنا سيدي كنعبان هذا أسيب قبل جاء تعبان سنة قبل نوتي عن أول ما بقول يصير حامل أوضل يسوى وغاية إن كسر الفورميشن مرة كاسة ما دام عن حرب ويجب أن يكون هناك يعني كتلطف هذا نحن نقولها ربع الجالية الماضي الماضي أنا قرأت كيلو ما دام يكون المفروض معين إن أغير تحمل قبل أوضل إلى سوى من يبقى تسير قلت أنه قبل لنا أوضل يسوى وحبان لا محي قبل لك إنسان لا محي وحويا لبح الحدود بين المجالات ومحاكم راح قبل كم أول الحدود من توبي ها صدق حدود هو إلا تركي ما لها ما سلاح هو أنا كنت أقصدها حاجة أنت لا لنا ما قاعد هذا يمسك حبة حنا عيدروس اليوم حقوا راح أحمد يوسف حتى كلا عرقاوه إيه هذا 1 minute إنك سو وقت يقول ده علي هذا نوع سو قابية يعني 1 minute سبان حقول عيال أنتي رأيه عم حقول كجاري عيال سبحان إن شاء الله أنتي مقال كجا اليوم حقول أرجع جماعة هذا قبل أول اللي قبل خسارة وعيدروس هذا بدو تشيلوي مكا قبل ملي لا سنة تمام ملي أيام ما عبوا حنين توبيا من لحد بعضهم كنت عاصمة قبل أوضة وإله waxay ku taala caasimadu waa baki oo ay caasimada marka la tijiri balaankeeda ee ma dhaweeyo taas maxaan ku lahaa caasimada gobolka waa baki oo maxaan ku lahaa meel dhexda ugu jirta hadii maxaan ku lahaa inta xuduud baan u dhaweyn intaas waa tii maxaan ku lahaa istiraatiijiyadii gobolka awdal u taalay boorama waa meel xuduud ku dul haysa Ethiopia taasoo ah maxaan ku lahaa koriya cawliyo xagan la yiraahdo beerta ayaa dar way xuduudaas ma dartay
taasi waxay ahayd boor oo bay ku koobneed ay daruuso insha Allah waxaan rajeynayaa maanta bidix bay ahayd soo dhaweyntaas laakiin midig kugu reegno ilaa xuduudii Jabuuti gudbina ilaa Seyla ilaa jasiiradii Sacaadiin iyo ka dhawaan meesha marka gobolka awlab maadaama aad tiri ceergaabo 24 saacadood ilaa 24 saacadood labada duleed baa loo mariyaa xaggan markaan xagga haddii la yidhaaho doorka dabdaan kaa saaran maxaan ku dhahaa 5 jasiiradood baa ku yaala inaad ka aragtaan malay maxaan ku dhahaa qoraayad iyo Sacaadiin maarshaab marka intaasna maxaan ku dhahaa dhul dalxiis loogu tookayso daalooda loode anaa kugu dari maxaan ku dhahaa daalooda looda ay dumiseen aad uga sheekaysan hayda laakiin anaa kugu dari taas gobolkaasi waa waxyaalo badan ay iska mid yihiin waa la maano awdal iyo gaabo gobolka Sanaag taasna waxay la maano ku yihiin maadaama ay gobol Soomaaliland ba inteera loo wasiirka dalxiis waa xurmiisu waa awdal iyo gaabo waayahay haddaan maxaan ku dhahaa hadalka Caydaruus iyo maxaan ku dhahaa siduu inooga sheekeeyey inta kalena kollayba maxaan ku dhahaa uga oo maxaan ku dhahaa waxyaalo badan maqaalkiisu waayahay insha Allah intaana waxaan kaga baxaya idan maxaan ku dhahaa gobolladeedu waa siduu hadalka u dhigay uu soo wada koobay Soomaaliland oo dhan nimca fadhida dhulkeena marka insha Allah inaan ka faa'iideysano dhulkeena ay nimca fadhido hadda waxaan si toos ah uga baxayaa intaas waxay iga ahayd maxaan ku dhahaa iga doorxul iyo information yaroo gaaban kowna ma taagnaha laakiin information gaaban ma ahayd tii kale boqortooyadii aadan baa looga jiray hataa ku sii dardaro Soomaalida ama geeska Afrika boqortooyada haddaan inyar maxaan ku dhahaa aan kaaga sii dulmaro waxay ahayd xaggii laga xukumi jiray giga Soomaalida diintuna laga soo ilaa heer geeska Afrika taasna maxaan ku dhahaa waxa weeyaan waa ilbaxnimada iyo qalbiga qasalka iyo maxaan ku dhahaa damaashaadkaana waa sheekooyin badan oo ka hayo boqortooyadii iyo farxad badan oo lagu shooyay marka insha Allah waxaan taas isna ma akhri uga sheekeeyaan dib uga sheekeeyaan baayad marka haddii la helaa waxaan si toos ah ugu gudbinayaa waxay noo hadhay gumaanad qiimo badan oo ah wakii aan u qalaynay iyo shahaadadii la guddoonsiinayey walaalkeen Caydaruus Cusmaan Caydaruus Maxamed Cusmaan wehelkayga shahaadooyinka la guddoonsiinayey keligii lama guddoonsiinayo waa magaciisa waa magacii book fair international magaciisa isagoo wata isagoo gobolkii Sanaag magaciisa wata iyo magacii Caydaruus iyo magacii Anfac iyo Sange iyo Daargaal magacaatana ana u sharaxay Caydaruus waxa si toos ah aan u gudbinayaa haddii la helaa walaalkeen Amiin Xasan Aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka dallada guud ee isku yimaadeen naadiyada akhriska gobolka Soomaaliland Amiin ku soo dhawow inoo soo noqo haddii la helaa waxaan u baraynaa si toos ah haddii la helaa shahaadooyinkii ku soo dhawow meesha isku timid kala reebi maayo maanta Caydaruus marti ka dhig maayo gidigeen oo marti sharafan waxaan ku yar furan diriba sheekh baa waxa dhacay nin sultaan oo haayo chaadkiisu guriga ka soo qaatay soo guriga dhigtay markuu dhigto ka yareeyay guriga islaantiisa ka seexay ku soo baxo markuu ku noqdo tagay guriga baaki xanta guriga ku dhigtay yara galay markaa wuxuu nin yara talaabo soo talaabo soo yara dhacay markaas waa yaba lagu waa sheekh cilmi talaabo yaa sheekh Caydaruus ma yuu sheekh Caydaruus oo trans markaa waa Caydaruus oo yaa ma dhaafi doona Caydaruus ku soo dhaweynaya gobolka Qiimeeya Qadalooy sabab loo sheegto waxa looga timid gobolka agteeda Qiimeeya Qadalooy waxaan xasuustaa waxa laga isticmaali jiray ceelka dawladda Soomaaliya lacagteeda waxaa barasaabkii ka bedelay lacagta waxaa barasaabkii gobolka ama barasaabda oo mid waa connection si gaar ah in looga dhaxayo
markaa lacagtii waa la bedelo ceerigaaba laga bedelo waana la bedelo nin muwaadin gobolka wada la bedelo markaa waa connection labada gobol ka dhexeeya waana xasuusataan loo bada saabaa soo maray waa foyniyo dacad oo sidoo kale waxaa ka jira dhalinyarta reer ceerigaabo inaanka waxbarashada maadaan saad ugu soo sheegteen ceerigaabo iyo buurima saan oran karno oo walaalihii gobolada oran karno maanta ma horta kulan ay iskugu yimaadeen adko anfac iyo aayareen waxay hore ugu soo lafagureen isku soo barteen dhaxaqeed waxay in muddaa soo wada fadhiyeen oo ka wada tashan jireen siday dalada isku meeloo yeelan jireen waxaan meesha 8 daaroodnimo u fadhiisano 8 daaroodnimo uga kici jiray sidaan meel aan ka midaysano oo sameysano taasoo ah dalada dhaxaqeed waana mid sharafa inaan maanta halkan u fadhino inagoo dalad gaar leh walaalo gaar ah nahay si gaar ah isku midaysana waxaan xasuustaa markii lagu jiray buug feerka ay dariso waxaa nin aad iyo aad ugu muhiimad xidhi labada duurnimeyntii la soo hadlay isagu soo jeedi jiray iyuu goola jiray mina maanta horeyno mina maanta waxaasaa jira waxaan xasuustaa maalin ku dambeeyey aan barnaamij ku lahay koodii duurnimo iskuulkan keenay isagu meesha wuxuu ka tegay koodii tobankaa intaasna wuxuu soo jeeday sidii naadiyadu xaqa ugu gudan lahayd ay duruus haddii abaalkiisaan celinayn naadiyadu abaal fara badan bay ku leeyihin cadkii ataa ku fadhiyeen ninkii usoo dhigi jiraan udheeladaan deganay ninkii lacagteeda noo soo qaadi jireen markaa cayduruus agteena horta xushmad aad u fara badan ayuu ka mudanya waxaa dareemi karaa intii buug feerka joogtay siduu u meereysan jiray u dadaali jireen kule waanu dareemi karnaa inuu noola jeclana hadalka badno cayduruus xushmadka waa lagu leeyahay cayduruus waxaad kusoo dhaweynaya gobolkeeda عذرت منك يا أخي بلينك بس عداد منك السنة دي أول بوشة أنا السنة دي السنة دي أول بوشة عدوني تيجي ونين واحد هيقولك أول دي السنة دي أنا بوشة السنة حاولت أجاوبني بعد ما كعوض وين كلا بحث السنة ما كان نادي دي السنة الكسر بحث نيجي بسود وين بالسنة ولا بعض أنا بعض العام بسود وين الله سلامتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمين أدو محسن هاي كل كيلو قبل اليوم حنكو راح عويس ونعكسن عويس أنا عايز أسوق المكان عويس إذا عربي ما بدي وايد ستوس أمين دعيونا يا صلاح وايد وحنا مثال محنكو أنا شهادة وقبل وحنا ستوسع عن محنكو عن ميديها ومهد علميا عندي واجبات كان قدرتي إن قبل السومال نسبتي حق لها وأبو جامع موسى جامع waxaan ku rahaa xagga media hayna hadda laga duubayo waxaan si toos ah aan ugu gudbinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha Chelsea ahna abaabulaha weyn buugagta caalamiga Hargeysa waa shakhsi ku suntan dhalinta ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadasha ama buug ha qoraan ama maxaan ku rahaa qalinmaan ha sameeyaan ama naadiyo akhris iyo maxaan ku rahaa wax ay ku bohobeen ha noqdaan ugunta xidhay sidoo maxaan ku rahaa ugu gaari lahaa sida caalamku u hormaray dhalin soo saari lahayd oo bedel lahayd maxaan ku rahaa ummadan aan la noolahay iyo maxaan ku rahaa geeskan Afrika bas aan ugu dhex muuqan lahayn waa nin ku suntan si khaas ah waxaan ugu gudbinayaa anigoo maxaan ku rahaa ku hadlaya dhalinta afka Soomaalilaanta waxay si toos ugu gudbinayaa jaac muuse jaamac waad ku mahadsan tahay arrinta aad u gunta xiratay Soomaaliland dhalinta Soomaaliland ku nool inaad maxaan ku rahaa aad juhdi badan aad u gasho waad ku mahadsan tahay hadda waxa si toos ah ugu gudbaya hadda iyo maxaan ku rahaa maamuustaasba ciddii ii wakiilatay oo ah naadiga akhriska Ayareeb iyo akaademiyada horumarinta cilmiga aqliga oo jaamac muuse jaamac ku wada kal iyo laab anoo ku suntan maxaan ku rahaa naadiga ceergaabe anfac
hadda aan maxaan ku dhahaa sababtin iyo shahaadada guddoonsiin doona waxaan si toos ah aan ugu dhiibayaa shahaadooyinkan labadayda garab yaalla waxaan jecelahay inay soo dhawaadaan labada guddoomiye akaademiyadda horumarinta cilmiga aqliga iyo naadiga akhriska ayareeb labada guddoomiye kala ah axmed sky iyo cabdikariim xirsi oo waxaan jecelahay ay imaadaan labadayda garbood si ay u guddoonsiiyaan wehelkeenna guddoomiyaha naadiga anfac kuna suntan international book fair kana qaatay si toosa waan ugu kala dhiibayaa midig iyo bidix bay kala joogaan marka midigtii waxaan ku hayaa naadiga akhriska ayareeb ayaa midigtii ku hayaa bidixdiina akaademiyadii baan ku hayaa hadda si fiican baan isku dhaafinayaa soo maa waayahay waxaad si toos aad u guddoonsiinaysa Caydaruus Maxamuud Cusmaan waan idinka baxay waqti dambe ولكن أيام الأولياء الماسية هي في عالم برامج كمدة الدنيا وكان يذكر لنا إنه ولكن شرحين كنت تنماها إذا عملنا هاي وحي عملهم بيضا ما توقع لنا أمام رسولنا فالسوء حويا ومن آن أمها العلم شرفت إلى المدى نفعنا مدى عيدروس حرب وكيلة أكاديمية horumarinta cilmiga caqliga ee adkow waxaan si kan iyo laab iyo waraaqnimada ku guddoonsiinaynaa shahaado sharafeed ay ugu talagaleen inay بسم الله قبل ما تصير العلوم أدرس الحفاظ على الوكيل أنا بدونيها ما يبقى هيك أنا وكيل كان يبقى هيك حكم بدوسيني يا شهادة شرف الوقت كيف بنظام يروح كل بدوسيني لكن ترى بس غير حساب ترى هذه بدوسيني يا هنا بدوسيني قلبي وصوص anigu ma garanay cid igu soo dhaweysay aniga isku soo dhaweynaya anigoo ayaala Cabdiraxmaan Ibraahim oo u dhaxeeya akaademiyada horumarinta cilmiga iyo naadiga akhriska ayareeb oo u dhaxeeya waxa la yiraahdo Caydaruus Maxamuud Cusmaan mar labaad waa inaad kacdaa waa inaad dhexdhexaadkii isticmaalaa waa inaad ku guddoonsiiyaa naadiga akhriska ayareeb iyo maxaan ku dhahay akaademiyada horumarinta cilmiga aqliga diiwaanadayna Caydaruus hadalkii ugu dambeeyey iyo macsalaamaynta inta kale ama cawaysa haado yeen isbaranayba ayano waan isbaranaynaa uu noo xidheeya shirkii iyo maxaan ku dhahaa barnaamijkeennii cawayskaas iyo maxaan ku dhahaa kaftankaada waxaan ku soo xidhaynaa inaan maxaan ku dhahaa ay ku ekaato hal minut ayaan Caydaruus siinayaa oo uu soo sameeyo kadib waan isbaranaynaa miidiyahana saab inoogu xidhaya markuu Caydaruus hadlo wassalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب بدأ ده واحد مغلي شوي ما أنت شعورت أصلاً تابع مغلي شوي ده شعورت وحويا وبقول كذا أبوي مناكم محمد ما كان صاو إيران سياسي كرسوني وأنا هذا كلر كتاج الحمد لله كلر كتاج ما شاء الله والسياسة كيشنيا الله رجيك وتفضل كتاسة واحد كرسوني ده waxaad ii tahay dee macallin baad hadda youtube-ka kalaasyada markaan eego alxamdulillahi rabbilcaalamiin shahaadooyinkan halkan laygu siiyey waxay iga dhigan yihiin dee weli tii jaamacadda maan qaadanay dee waxay iga dhigan yihiin kolley dee tii igu sugeysay igu qiimaha badnayd
waxaan halkan siyaasiyiinta ma joogto habeeno badan oo siyaasiyiin la isku ammaanayo oo awadhida laga dhiibanayo oo maayo hebel iyo suldaan hebel iyo barasaar hebel iyo aqoon-yahan kale oo siyaasi ah ay joogeen baa jirtay maanta wax iiga qiimo badan tahay wax walba siyaasi nala joogo inagii baa wada sheekaysanaynaa kumayhi kumada caajisin walgii bile wax xaaladaydu tahay dee ma qiyaas waan soo joojinayaa salaanta u dambaysaan salaamayaa gobonimo shahaadooyin ayaan le markan buuqayeero fahmay kuwa u leh ayaan leh suldaanka safiyadka meeshan idinkaa soo dirsaday oo u malaynayaa tiisi ka weyn qudbajoog sida wasaaradda sababtigu yiri ninkii heer shaqi ogay sayla iyo salal wax la yidhahdana way igu shuba layga sii buuxiyey maydhiya baa layga baabiinayaa geelweyte iyo maxaa la yidhahdaa gudcaanood iyo xiis iyo adigu meelihii qadiimiga ahaa ee kumanaaga kunaynu naqaanay daacibaya qoladana salal iyo sacaadadiin hadda sacaadadiin waa nin reer sanaaga iyo sharmaaka oo buug laga baa halka yaalla isna waa nin reer sanaaga mayd buu ku dhashay isma taqaaniin malaaye waa nin reer sanaaga degmada ceelgaal halkaasu ka yimi sacaadadiin ninka la yidhahdana waa nin reer ceelgaal ahaa dee wixii shucuurtaydu waa ahayd baa waan iska joojin isa kusoo hakin ugu dambayn saleebaan oo qofka iigu qiimaha badan markaan sii eego ah baan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu taariikhda hidahan habaaska ka tira